nin sarifla ayaan ka amaahday 100 kun oo Somaliland shilling ah marka intaanan siinin kadib ayaan ula imi buu yiri isagoo amaahdii igu leh $100 kadibna $100 baan ku yiri ii sarif lacagtaadii amaahda ahayd ee adigu lahaydna ka gooso tacaamulka noocaas iyo qaabka aan u tacaamulnay miyuu yahay mid sax ah arinta noocaas waxa ay isugu jirtaa dhowr mucaamalada koowaad labada qof dhex maraysa waa sarif in dollarkii shilin loogu bedelo mucaamalada labaadna waa deyntii lagu lahaa qofku inuu iska bixiyo uu deyn baxo marka suura ay sax ku noqon kartaa waa jirtaa oo hadduu yiraahdo inta aanad sarifin 100 kun shilin aad igu lahayd iyadoo dollar gooso taasi iyadu waa sax weey wax dhibina kuma jiro qofka iyadoo shilin lagu leeyahay dollar uu ku deyn bixi karaa waxa shardi ah in lagu sarifo lagu qiimeeyo qiimaha uu sarifkaasi marayo maalinka ama waqtiga la joogo intaan la kala taginna labada lacag ayo tii qofka lagu lahayo tii uu ku deyn baxayay ee kala duwanaa waa in la kala qaato iyadoo wax la isku leeyahay inaan la kala tagin marka taasi iyadoo wax dhibaato ma laha laakiin hadduu leeyahay 100 kun ba ii wada sarif kadibna $100 ba ii wada sarif kadibna 100kaagii kun oo kaasha ka gooso taasi waxay khalkhal gelinaysaa qabdigii hadduu $100 wada sariftay horta $100 oo kaasha oo shilin Somaliland waa in isaga lagu wareejiyo soo qabdigu u dhaco kadibna 100 kun shilin isagu waa inuu iska bixiyo waayo $100 waxa la rabaa inay horta kaash wada noqdaan qofkan sarifanaya in ay ku wada wareegaan markaasuu qabdigii ribada lagaga baaqsanayay u xaasilaya hadii kale waxaa dhici karta dee inuu sarifay intii waxa weeyaan qofka uu celinayay intii kale aanu sarifinba marka inta qabdigeedu aanu xaasilinba oo qofku la wareeginba المهم صاحدي waxa weey inuu yiraahdo $100 horta ka gooso intii aad igu lahayd adigu inta dollar u bedelato dollar ahaan uga gooso inta ay hadana ay sarif ama waa inuu yiraahdo $100 ii sarif tana kaashkii uu la wada wareego kadibna lacagtii shilinka ahayd ee lagu lahaa waa inuu iska bixiyo wallahu a'lam